السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أهلول عبد الرحمن حاجي آدن كترسن هوينك بودلان يا قرب جوكته وحان إلهي كبريايا دورشدا ديعي دونته 8 جنوري 2019 إلهي إنو نوغو دمايو سي نبدغليا له حسيلون noona soo saaro hoggaan dhammaan shacabweynaha Puntland ay ku faraxsan yihiin oo insha Allah masiirka Puntland loo hanan kara insha Allah bidmillah ta'ala waxaan rajaynaynaa guul farxad nabadgelyo xasilooni iyo horumar Puntland dhamaanteedba insha Allah waxaan musharaxiintan faraha badan oo u tartamaya kursiga madaxweynaha udirayaa baaq ah war kursiga waa hal nin baan helaya dhamaantiina kii hela waa wada hesheen dhamaantiin waxa tihiin garba isu tihiin waxa tihiin dhamaantiin reer Puntland baa tihiin walaalaa tihiin ehel baa tihiin meel ma kala jirtaan sida la aligeed intaad isu tagtaaniin oo miis wada fariisataaniin u tanaasula midka ay isleedihiin midkaas baa maanta inii ku macquulsan masiirka Puntland maanta badbaadin kara fikradda isku darsada talada isku darsada isu taga mid u tanaasula iska daaya waxa kan tirada badan oo istaba yaacaya iska daaya hadallada xunxun oo xanafta la aad isu marinaysaan midyaha iska daaya inaad iscambaaraysaan walaalaatihiin ehel baatihiin tol baatihiin dhammaantiin waxa tihiin ragayagi reer Puntland marka insha Allah waxaan jeclaan lahayn idinkoo midaysan oo mida inaad u tanaasushaan mid ku doonaba ha noqdee insha Allah xilbaanadana baaq baan yar baan halka u diraya waxaan rajaynayaa inay ka shaqeeyaan masiirka Puntland inay ilaaliyaan qalbiga shacabka Puntland inay soo saari doonaaniin insha Allah kay raadinayaan shacabka Puntland hadii Ilaahay idmo aad baan ugu hambalyeynaya xilbaanada 66 xilbaan ee la soo shaaciyay insha Allah dooran doona madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeenka hambal yani leeyahay dhageysi wacan musharaxiinta Puntland maxaa idin helay musharaxiinta Puntland maxaa idin helay malaayiin baatihiin xalku waa mid culus malaayiin baatihiin xalku waa mid culus kursigu waa midaynta had meel isugu tagtaan kursigu waa midaynta had meel isugu tagtaan midoobo magacan oo dhowramuuna dale midoobo magacan oo dhowramuuna dale oo midkii miisaan leh oo aan mucaarad noqon midkii miisaan leh oo aan mucaarad noqon madaxda qarankeena mahamusa oo mugweyn madaxda qarankeena mahamusa oo mugweyn Soomaali mideeya mahamusle baan rabnaa Soomaali mideeyo mahamusle baan rabnaa oo maamul goboleedka naga reeba magacan baas oo maamul goboleedka naga reeba magacan baas maamul goboleedka naga reeba magacan baas Puntland meel sare u qaadaya maalma dhow Puntland meel sare u qaadaya maalma dhow oo matadaadihiya mahalkeena aan cunayn oo matadaadihiya mahalkeena aan cunayn dhalinta u miciina oon moralkooda dilin dhalinta u miciina oon moralkooda dilin midoobo doorta ka haasanu magane midoobo doorta ka haasanu magane sadiiq sawdkiisa ka dhaabeeya oo sal culus sadiiq sawdkiisa ka dhaabeeya oo sal culus Puntland samaheeda ka shaqeeya oon sir wadan
puntland samaheeda ka shaqeeyoon sirwadan cadaalada simaya oo aan saluug lahayn cadaalada sugaya oo aan saluug lahayn xuduudaha noo sugayo saxiix ku tahay xuduudaha noo sugayo saxiix ka tahay midkii sifahaas le sareeyo hogaankasi midkii sifahaas le sareeyo hogaankasi amiin yaa rabbi war xildhibaanada la doorto xaqiiqda suga xildhibaanada la doorto xaqiiqda suga xogaha wada urursha oo xalkuyuu xumaan xogaha wada urursha oo xalkuyuu xumaan xariiftan sameeyo xirfadina sare u dhiga xariiftan sameeyo xirfadina sare u dhiga oo puntland ha u xulina ruux aan xafidi karayn puntland ha u xulina ruux aan xafidi karayn insha allah puntland waxaan u rajaynayaa guul doorasho wanaagsan doorasho xor iyo xalaal ah doorasho lagu farxo insha allahu biidnillahi tacaala xasiloonida ku dadaala reer puntlandow nabadiina ilaashada xasiloonidiina ilaashada deganaanshihiina ilaashada samacadiina iyo magaciina ilaashada doorashada ha inay ku dhacdo si hufan si xalaal ah si nabadgelyo ah insha allah inoo soo saara hogaamiye aynu ku wada faraxsannahay dal iyo dibadba insha allahu biidnillahi tacaala guul salaamu calaykum